محمد آدم أحمد كترسن جيتada 77 ilaalada madaxtooyada oo ku sugan hadda garoonka Raaskambooni waana nabad qabnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin dagaal baan noo soo qabtay waana nabad qabnaa si fiican bay noo soo dhaweeyeen ciidan Soomaaliyeed xil Soomaaliyeed baan soo dhaweeyay maanta waa nabad qabnaa wixii dhintay Ilaahay u naxariisto wixii dhaawacana Allah caafiyo wixii dhaawacana waa la daweeyay wixii dhintana way dhinteen inta kale waa nabad qabnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ma haskale laba xiddigle Adnaan Umar Maxamed lambarku waa 24 22 wax dhibaatana liima gaarsiin nabada hadda Muqdisho soo degay waa insha Allah ciidanka haramcada ka tirsanaa Bismillahir Rahmaanir Rahiim ana magacaygu yahay Abdishakuur Mursal Maxamed Aadan ka tirsan guutada 77 ilaalada madaxtooyada anakoo 33 qof aan meesha ku joognaa si fiican baan noola dhaqmay waxna noo dhimay malaha dagaal baan noo qabtay billahi tawfiiq ciidiina ma joogtaan ciidiina ma tageysaan guriyiina wada caawu hooyaneysaan kismaayina ma mareysaan xamara ka dagaysiin اسمع سلامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم halkani waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Raaskambooni waxaan ku wareejinaynaa taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga Soomaaliya taliye Macalin Nuur qayb kamid ah ciidamadii dhalinyaro Soomaaliyeed oo maxaabiis oo lagu qabtay dagaalkii Arbacada meeshan ka dhacay qaybtii koobaad faleedii koobaad oo laba faleed ka kooban baan dhoofinayna maanta oo u dhoofinayna magaalada caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo guryahoodii Arbacada dagaal baa meeshan ka dhacay dagaalkaasi wuxuu ahaa runtii dagaal nasiib darro ah kuma faraxsanin sababtiisana waan garanaynaa Jubbaland gaar ahaan deegaanada hadda aan joogno Kambooni waxay ahayd deegaanada ugu ammaanka badan Soomaaliya ma kamid ahayn deegaamada ciidamada ATMIS ay joogeen kamid ma ahayn waxaa joogay ciidanka Jubbaland laga soo bilaabo 2011 oo ka qabtay shabaab waxa deegaan nabada deegaan waxa weeye aan xabado ka dhicin even hatta 30 sano la soo dhaafay dagaal ka dhicin buu ahaa waxaa nasiib darro ahayd 25kii bishii 11aad in dawladda federaalka dhalinyaradan ku soo daabashay diyaarado xamar ka keentay ka soo dejisay halkan say ula dagaalamaan walaalahoodii ciidankii xoogga Jubbaland ee la dagaalamayay shabaab cid la dagaalamayay shabaab ma ahayn waa ciidanka xoogga ciidankii Jubbaland ee deegaamada joogay bay ahaayeen kuwana in la laalusho lacag la siiyo oo la yiraahdo number beena iyo hawl kale loo sheego waa la siinaya waa la qalabaynaya yaa xaweeya ka dhalatay dagaalkaasi Arbacadii soo gabagaboobay dhalinyaradani waa dhalinyaradii beesha lagu qabtay kuma faraxsan dhalinyaro Soomaaliyeed in maxaabiis ku tilmaano kuma faraxsan dhalinyaro Soomaaliyeed in la laayo kuma faraxsan dhalinyaro Soomaaliyeed isku dhintaan cidda xabad naga mudan ee inaan la dagaalano ay tahay waan garanaynaa waa shabaab waxaad moodaa dawladda Soomaaliya inay ka mashquushay dagaalkii la rabay in lala galo shabaab oo xoogga la geliyo waxa daliil ku filan inaan dagaal ka dhaxeeya ciidanka xoogga Soomaaliya ee taliyuhuna gala joogo qaybta 43aad ee Jubbaland ka hawlgalaysay iyo ciidamada Jubbaland inaysan jirin taliyo Kismaayo hadda ka soo duulay halkaas uu ka hawlgalaa iyadii ku laabanay doona geeday joogan dhoobley bay joogan waxa weeye deegaamada soo xabadna kama dhix jirin maxaa keenay halkan inay ka dhacdo waxaa keenay musiibo iyo mushkilad dawladda Soomaaliya ay la rabtay Jubbaland inay ku khalkhal geliso nidaamkeeda ay ku burburiso ay ku dumiso waxaan leeyahay dawladda Jubbaland iyo ciidamada Jubbaland ka kooban qaybahooda kala duwan sida hanqad abris gurmad qaran iyo waxa weeye qaybaha kala duwan ee daraawiishta ee ciidamada Jubbaland waxay u maareeyeen iyo shacabka Jubbaland iyo dawladda Jubbaland isku duuban sidii ugu fududayd ee musiibada loo maareeyay lahaa ay u maareeyeen waxaan ugu baaqaynaa waxa weeye dawladda Soomaaliya inay intaa ku ekayso oo ay joojiso khalkhalka ay hadda wali ka wado geda ka wado meel badan ay ka wado ee dawladda Jubbaland deegaamadii nabadda ahaa ee maamulada ku jiray lacagaha loo qaybinayo ee dadka Soomaaliyeed iska horkeenayo min fadlikum madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shabaab baa u baahan wadanka in la xoreeyo
ciidamo Afrikaan ah jooga wadanka waxa weeye in maanta iyadoo ciidamo Soomaaliyeed oo la dagaalamaya shabaab oo xoog gaar ah ay joogaan oo meel walba jooga in waxa weeye la isku mashquuliyay ciidamada AMISOMna waxa weeye la yiraahdo noo kaalay wadanka noo difaac oo kaalay ilaaliyo shabaab nala dagaalgala inama qabato waxaan ugu haboonna ma aha waxa hawshan fuliyay waxa weeye amniga deegaanka ku soo celiyay xabadda waxa weeye sameeyay dagaalka bilaabay diyaaradaha keenay dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka anaga hor soconay magaalada nidaan u soo soconay deegaanka anaga u soo soconay ciidanku inay yimaadaan oo ay walaalahooda la falgalaan halkan jooga oo nu la hadallo oo dhalinyaro Soomaaliyeed baatiin waa la inay soo khalday xabad